وبرنامجكيني بالشكا وبرنامجكيني بالشكا إياد كبرتين باغدير قلني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة Somali Motivation Podcast waxaa idin la socodsiiyaa anigoo ah Istaahil Cabdiraxmaan Caydiid. waxaad ka dhageysataan isbuuc walba halkan barnaamijkeena dhiirigelin. maanta waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijkeena noocyada waalidnimada amba waxa loo yaqaano parenting styleska, kuwaasoo ah aynu qaybin doona 4 nooc. inta badan waxaa loo qaybiyaa 5 nooc, laakiin 4 ayaa muhiim ah. qofku qaabku ilmihiisa u tarbiyadeeyo ee uu u koriyo ayaa waxay saameyn toos ah ku leedahay ilmihiisu qofka uu noqonayo, sida uu noqonayo, fikirkiisa, habdhaqankiisa, fayaqabka maskaxdiisa, kalsoonidiisa, waxbarashadiisa iyo go'aanada uu ka qaadanayo nolosha marka uu weynaado. saa darteed maanta waxaan sheegaynaa nooc kasta amba style kasta waxa uu ku fiican yahay iyo waxa uu ku xun yahay, kan ugu xun iyo kan ugu wanaagsan. sidoo kale waxaad ka dhex arki kartaa nooca adigu aad tahay, isla markaana waxaad muraayad ka daalacan kartaa ilmahaagu qaabka uu noqon doono. ilaahayba oo qofka waxa uu noqonayo, laakiin macnaha haddii aad qaabka ilmahaaga u korisaan baasaa ula dhaqanto, waxaa laga yaabaa in maxsuulka noocaasi uu ilmahaaga kaaga soo baxo. 4 qaab ayaa ah amba style amba noocyada waalidnimada ah ayaa kuwa baaritaan iyo study fara badan lagu sameeyey, oo inta badan psychologists-ka adduunku way isku waafaqsan yihiin oo sideedaba loo soo qaato marka laga hadlayo waalidnimada. haddii aynu ku bilowno nooca amba ka koobaad ee styleskan ayaa waxa uu noqonayaa ka loo yaqaano authoritarian parenting style, kaasoo ah mataqaana aad moodo in uu yahay nooca ay Soomaalidu u badan yihiin, oo ah mataqaana control fara badan in ilmaha la saaro, in la siiyo in wada adag iyo sharci adag uu raaco. sidaa yeelsaha sameyn carsaa yeel carmada ku dhaca bal waa kaasa samee. ilmaha waxaa la koriyaa jirkiisa iyo jiritaankiisa muuqda, laakiin aan fikirkiisa la dhageysan, dareenkiisa la dhageysan, lala sheekeysanin. isaga waxaa loo dirayo amaruun lagu siiyo oo aan mataqaana aanu isagu waxba ku daran. nooca loo yaqaano authoritarian parentku waxa weeyaan ilmaha wuxuu ka rajeeyaa in uu raaco wadadii loo jeexay ee adkeyd ee mataqaana ciriiriga ahayd, isagoon ka weecweecanahayn, oon su-aal weydiinahayn, oon hadal soo celinahayn, oon sharaxaad weydiinahayn. waalidka aan odhanahayn macnaha waayaasaasaa u yeelayaa, maxaasaasaa loo sameynayaa, amba waalidkiiba aanu ilmihii u sharaxahayn, laakiin mataqaana sida bandooga lagu soo rogayo sharcigii. aabahabaasaa yidhi, hooyadabaasaa tiri yeel soco. ilmuhu inuu waalidka adeeca waa khasab, waa diiniyan, waa muhiim. laakiin mataqaana in ilmaha dareenkiisa iyo fikirkiisa la dhowrana waa diiniyan, oo mataqaana la sharfo oo la ixtiraamo qofka ibni aadanka. diinta ayaa ilmaha iyo ibni aadanka jiritaankiisa ixtiraamtay. marka ma aha wax akhlaaqdii wanaagsaneed kasoo horjeesanay in ilmaha la dhageysto oo la sharfo oo loo sharaxo oo la fadhiisto, oo deetana wixii loo dirayo loo dira, amarka la siinayana la siiyo. waalidkan authoritarianku kama mataqaana inay ilmaha kusoo rigaan in haddii uu raaci waayo wadada adag ee loo jeexay in la ciqaabo, ciqaab lagu soo rigo, amba loo hanjabo oo lagu hanjabo in la ciqaabayo. mataqaana haddii ilmuhu uu raaci waayo ayay inta badan caan ku yihiin. waxyaabaha uu saameeya amba saameynta ku yeesha ilmaha haddii noocan loola dhaqmo amba dabeecadaha ilmaha kasoo baxa ayaa waxaa ka mid a inuu noqdo ilmuhu mid mataqaana mid cadho badan oo mataqaana markasta karaahiye ku sugan oo qaylinaya, oo ilmo cadho badan amba dabeecad xunba haddii saa loo dhigo. inuu noqdo mid mataqaana sharciyada kasoo horjeedo, waxaa lagu dilay amba loo diray aan sameynin, oppositekeeda sameeya, cakiska waxa kasoo horjeeda sameeya ayuu noqdaa, oo mataqaana xoriyad halkaa ka daya inuu mataqaana wixii sameyn waayo lagu dilay.
inuu noqdo ilmo aan u hogaansanayn sharciyada iyo akhlaaqiyadka fiican amba iskuulka ha ahaado amba bulshada gudaheedaba ha ahaato oo ku koro maadaama sharciga lagu camiiqay oo lagu cadaadiyey dabeetana inuu mataqaana uu sameeyo cakaskii oo uu noqdo qof waxaa dhici karta inuu noqdo qof dambiye gala amba akhlaaq fiicnin ku kaca oo la xidho amba sharciga iskuulka jabiya oo ilmahaada jiraan iskuulka laga soo eriyo amba waxbarashadii macnaha wax kastoo loo diro loo jeexa ma raacayo sababtaa weligaa lihiba loo soo jeexaya markaa khaatib ka taaganya waxaana ku dhaca baa la yidhaahdaa siday sheegeen dadka studiga ku sameeya waalidnimada noocana in uu ilmahani noqdo xataa isagoo yar uu bilaabo inay ku dhacdo anxiety iyo depression macnaha isku buuqanba inuu dareemo mataqaanaa culays fara badan iyo warwari inaanu faraxsanayn oo uu depression ku dhaco ayaa dhacda sidoo kale ilmahan ayaa waxau noqdaa mid mataqaanaa ay u eg tahay inta badan inay ku dhacdo kalsooni dara amba macnaha self esteemkiisu inuu hoos u dhaco kalsoonida iyo kalgacaylka amba naftiisa qiimaha uu haya inay hoos u dhacdo oo mataqaana qof kalsooni daran amba naftiisa ku kalsooneyn ayuu noqdaa marka haddii aan kaga yimaado mataqaana authoritarian parenting styleka xaggaas waxaa ku xiga kan labaad oo la yidhaahdo waa ka ugu fiican inta badan kan ayaa waxa weeyaan tusaale ahaan oo kale in aad ilmahaaga aada geliso dadaal adiga oo daryeelaya xidhiirka adii ilmahaaga idinka dhexeeya oo la sheekeysanaya oo soo dhaweynaya inaad u sharaxdo sababta ka dambeysa go-aanka aad gaadhay amba sharciga uu raacayo amba ciqaabta aad kusoo rogtay inaad u sharaxdo oo la sheekeysato oo dabeetana tusto waayo aad u sameysay waayo mataqaana ay tahay inuu sharciga u raaco iyo wax kastaba adigoo la gelaya mataqaana adoon ogolaanshiya ilmaha ay ka qaadanahayn oo mataqaana adiga ayaa waalidkiya laakiin waxaa u sharaxaysaa wax kastaasay ku yimaadeen waxaa hadduu sameeyo waxaa dhici kara sababtay u dhacayaan waayo ciqaabta u mutaystay haddii wax fiican sameeyo sidoo kale macnaa wixii ayaa sharaxaysaa ilmahaagii baad maqlaysaa halka ka hore ee aynu soo sharaxnay uu ahaa mid aad ilmahaaga arkaysid inuu jiro waad arkaysaa waad korinaysaa waad daryeelaysaa waxbaad u sheegaysaa waad mataqaanaa sharci baad dusha kaga soo rogaysaa kana ilmahaaga waanad arkaysaa waanad maqlaysaa oo mataqaanaaye waad dareenkiisa waad maqlaysaa oo waad dareemaysaa waad arkaysaa waad maqlaysaa waad dareemaysaa ya authoritative parentingka marka laga hadla ilmahaaga waad arkaysaa waad maqlaysaa waad la sheekeysanaysaa ilmaha qaabkan loola dhaqmo ayaa inta badan wuxuu noqdaa baa laleeyahay mataqaanaa ilmo mas-uul ah oo mas-uuliyadiisa qaadi kara ilmo mataqaanaa isku kalsoon ilmo fikirkiisa soo gudbin kara oo ka hadli kara mataqaanaa iskuulka hadday tahay intuu caruurta soo hor istaago u sharxi kara wuxuu doonayo adiga kuu sharxi kara wuxuu doonayo dareenkiisa kuu sheegaya taana waxay soo hoosgelaysaa haddii ilmihii wax ku dhacaan amba wax lagu sameeyo kaama boqonayo uu ku imanaya uu kuu sheegayaa iskuulkii uu ku fiicnaanaya oo mataqaanaa wixii la weydiinaya uu ka jawaabayaa kalsooni buu leeyahay wuu kacayaa wuu hadlayaa in la dhegeysto la maqlo waxay u tahay caado marka cid kasta wuxuu ka filayaa inay dhegeystaan warkiisa oo mataqaanaa uu sharafta adiga uu ka haystay oo kale ayuu ilmo yar ku koraya oo dareemaya marka waxay u sahlaysaa inuu fasalka soo hor istaago wixii sharaxo inuu fikirkiisa san u sheegay uu mataqaanaa soo gudbiyo waxyaabaha ilmahan u fududaada ayaa waxaa ka mid ah inuu naftiisa kantaroolo oo mataqaanaa self control yeesho naftaada inaad kantaroosho micnaheedu waxa weeyaan inuu qofku discipline yeesho oo hadduu wax akhrinayo wax akhriyo hadduu ciyaarayo ciyaaro hadduu mataqaanaa laydhaa waxaa cunin aanu cunin maanta nacnac ma cunaysid jimcaho kaliya nacnaca la cunaya iyo macmacaanka haddii laydhaa jimcaha ayuu sugaya waxa laga yaabaa mataqaanaa inta kale inay u fudato because waa self control buu leeyahay maalintii tv-ga la daawanaya maaha remotka halkaas ka yaal waxa laga yaabaa inaanu soo qaadin oonu tv-ga shidin uu naftiisa kantaroolo in mataqaanaa hadduu cadhoodo iskuulka aanu waxba ku sameynin cid dagaalin cid wax ku dhufan qaniinin dhirbaaxin miiska tuurin kursiga tuurin macnaha qof ilmo self control le buu noqonayaa oo mataqaanaa wax walba ilan waxaad kula gashay heshiis oo saaysaa hayeenin maanta caynka maaha maanta lama baxay beri waa la baxaya ma soo ciyaaraysid maanta waxaasaa jira
wax walba heshiis baad kula gasho. Tusaale ahaan maanta lama ciyaarayo, waxa la ciyaaraya 2 maalmood kadib, maalin heblaagaasan tegina, maanta kalaankasan tegina, maanta halkanaad fadhiyaysaa, waxba lama daawanayo, maanta waxba la akhrinayaa, maanta waxba la qorayaa, maanta xilli hore la seexanaya, beritoole waa la safraya, keligaa baad imanaysaa, caynkaasaad yeelaysaa. haddaad yeeli weydo saasaa dhacaysa, sababtood u yeelaysaa waatan. waxyaabahaasoo dhan marka aad siiso waxa u diyaarsan inuu mataqaanaa uu naftiisa kantaroolo, self control yeesho. calaamada labaad ee ilmahan kusoo baxaysa waxa inuu noqdo mid madax bannaan, oo wax walba waad u sheegtay, waad u sharaxday, waad ka caawisay sidii u dhici lahaayeen, siduu u dhaqmi lahaayeen, siduu samayn lahaa. taasina waxay keenaysaa inuu isagu iskantaroolo oo dabeetana madax bannaanaado, waayo warbixintii iyo informationkii uu ku noolaan lahaayo dhan buu hayaa. adiguna waad joogtaa oo waad arkaysaa, waad maqlaysaa, waad dareemaysaa ilmahaagii, waad u dhaga nugushahay, waad caawinaysaa, laakiin gacanta ma haysa, wax walba uma qabanaysid. saa darteed wuxuu noqonayaa qof independent ah oo madax bannaan oo isku filan. wuxuu noqonayaa qof faraxsan oo inta badan hadhow toolo guuleysta, waa qof discipline oo iskantarooli kara oo madax bannaan oo fahmaysaa. waxa uu noqonayaa qof mataqaanaaye moral leh oo wax kasta sababeeya. moralku waxa weeyaan waxa kaa qabta xumaanta iyo xumaha iyo wanaaga waxa ku kala saaraya. inaad been sheegto, inaad wax xado, inaad wax khiyaamayso, inaad wax istaba mariso, inaad mataqaanaaye aad si xun wax u gaadho, inaad wax xado. waxyaabahaasoo dhan waxa kaa qabanaya waxa weeyaan moralka, akhlaaqda iyo iimaanka qofka uu leeyahay. marka qofkan wuxuu noqonayaa qof moral leh oo akhlaaq leh oo isqabta. wuxuu noqonayaa qof sababeeya wax kasta oo idhaahdo waay aan u sameynaya, waay u dhacday waxaas, macnaha reason garaya, reasoning sameeya. sababtoo ah san hore usoo sheegnay, ilmaha waalidkiisu wuxuu kula dhaqmay in la sababeeyo sababta hadduu waxaa sameeya loo ciqaabay, in la sababeeyo sababta go-aanka loo gaadhay, in la sababeeyo sababta sharciga loo leeyahay raac mataqaanayey uu u raacay. marka haddii aan soo gaabino, authoritarianku waa kan aan soo sheegnay nidhi waxaad moodaa inay Soomaalidu u badan yihiin oo ah mataqaanaa waxa ay haddaad yeeli weydo waa lagu ciqaabaya, madaxa lagu jaraya. kan authoritative parentingkuna way isku egyihiin, laakiin magacu wax yar buu kala duwan yahay. waa kan ugu fiican ee ilmaha la arkayo, la maqlayo, la dareemayo, la caawinayo, oo dabeetana ilmuhu noqonayo mid mataqaanaa self control leh oo madax bannaan oo farxad iyo guul hadhowtoo la gaari kara, isla markaana ku nool mataqaanaaye ilmo moral leh oo akhlaaq iyo iimaan qabta leh hadhowtoo isagoo yar iyo isagoo weyn labadaba. haddii aan soo qaadano qaabkan noocan saddexaad ayaa waxaan odhan karnaa waxa weeyaan ka loo yaqaano permissive parenting style, oo ah isagu waxa weeyaan ilmaha kalgacayl fara badan ayaa lagula dhaqmayaa, laakiin tiise kantaroolka lagu haya ayaa aada iyo aada u yar. waalidka noocan isticmaala mataqaana permissive parenting styleka ayaa waxay yihiin kuwo inta badan xooga saara sidii ilmahooga u jeclaan lahaayeen, mataqaana kalgacayl u siin lahaayeen, laakiin sharcigii iyo akhlaaqdii iyo mataqaana ayaa meesha ka maqan. oo waxaa hayeelin saa hayeelintii ilmuhu u baahnaa ayaa meesha ka maqan. ilmuhu waxa u fududatay inuu sharciga jabiyo, inuu wuxuu doono sameeyo, mataqaanaaye in ilmaha haddii uu khalad galo amba uu wax xun sameeyo amba wax ceeba sameeyba saynu idhaahno, aanu ilmihii la kulmin mataqaanaaye wax caqabada amba wax ciqaab ah. ciqaab markaa kama hadla ilmaha la garaacaan balido, laakiin la idhaahdo saacadii filin kartoonka aad daawan jirtay maanta ma daawanaysid, tusaalahaan isaga ciqaab ugu filanta wuxuu jecel yahay baad ka qaaday sababta wax khalada ayuu sameeyey. waalidka isticmaala stylekan waalidnimada ilmaha iyagu ma siiyaan wax ciqaaba amba kama hadlaan amba waxbaba ilmuhu lama kulmo ilaa iyo khaladka uu sameeya uu yahay mid extreme oo aada iyo aada u weyn mooyaane. waalidkani ilmaha kama filayaan mataqaanaaye macnaa expectation amba filitaan kama filayaan ka badan waxa uu isagu awoodo, amba sida isku controli karo wax ka badan kama filayaan. halka kii ugu horeeyey aan
u arko inuu yahay midaan fiicnayn, uu ahaa mid ilmaha laga filayo inuu waxaanu awoodin sameeyo, inuu wax walba maqlo, inaanu khalad gelin. ya halkan iyagu kama filayaan amba kama rabaan ilmaha inuu awoodo, amba expectations aanu awoodi karin ilmaha inuu sameeyo lagama filayo. waalidkan ayaa hadiiba ay ilmaha isku dayaan inay edbiyaan amba ay wax u sheegaan amba ay mataqaanaa ay wax yar ciqaab yar kusoo rogaan oo fudud, in ilmaha marka ugu horeyso waxaaba ka heli waayo. haddii halkaa fadhiiso marka ugu horeyso arkaan inaanu fadhii karin amba wixii layidhi ilmaha samee maadaamuu khalad galay, marka ugu horeyso arkaan ilmuhu inuu dhibsanayaan baanu doonahayn ayay ka qaadaan oo yidhahdaan waayahay haddaba iska soco oo iska tag. ya haddii lasoo koobo waa waalid ilmihiisa jecel, waa waalid ilmihii kalgacayl iyo fiicnaan kula dhaqmaya, laakiin controolkii ayaa ka maqan, edbintii ayaa ka maqan. hadday is idhaahdeen edbiyana marka ugu horeyso ilmuhu uu dareemo inuu ku yaro culus tahay ayay ka daynayaan. waalidkan ayaa inta badan waxay u dhaqmaan sidii ilmaha saaxiibkii yihiin halkay u dhaqmi lahaayeen inay ilmaha waalidkii yihiin. ya oo ilmihii iyo waalidkii ayaa saaxiib ah. waxaa dhici karta in hooyadu ay kala hadasho ininteeda waxyaabaha personalka amba shaqsiga aanay ahayn inay kala hadasho, ay kala hadli lahayd amba saaxiib dhow amba qof kale. ilmahan iyo waalidkan ayaa ah mataqaanayay kuwo waxyaabo hii looga baahnaa waalidku inuu taladii waalidku looga baahnaa inuu bixiyo kale waxaa laga yaabaa inaanu bixinin saaxiibtinimo ku jirto, talo wanaagsan iyo xal wanaagsanna ilmihiisa aanu siinin. saameynta waalidnimada noocan ay ku yeelato ilmaha ayaa waxaa ka mid ah inuu ilmuhu isku arko mid madax bannaan oo isla weyn oo madax culus, macnaha madax bannaanidani maaha tii fiicnayd ee qof isla weyn oo mataqaanaa in ka badbadin loo kibir ku jiro. sababta wax hus yidhaahdaba mu arkin. ya haddii hus la yidhaahna markiiba okay kaa noqaa la odhanayay, oo waalidkiisa ayaa ahaa permissive, midaan mataqaanaa aan hus daba barin haddii af soomaali loo dhigo. marka ilmahan wuxuu noqdaa mid madax weyn oo isla weyn oo madax taag badan, waxuu noqdaa mid aan madax bannaanayn ee ku tiirsan mar walba waalidkii amba qofka uu la nool yahay hadhowtoo nolosha uu la wadaagayo amba saaxiibadii. hadba leefalka uu nolosha marayo cid ayuu ku tiirsan yahay, uga dependent maaha qof madax bannaan. controolka noloshii naftiisa aada buu hooseysaa, naftiisa ma controoli karo, waayo husba lama odhan, joogsa lama odhan, waxaa sameyn lama odhan. wixii lagu yidhaha sameyn markaa sameyn weyda ayaad naftaadii controlsh oo self control la timi. haddii aad taa la iman weydo micnaheedu waxa weeyaan aan taa lagu soo barin marka dee weynaato self control maliheed. waxa kale oo lagu arkaa ilmahan in uu ku liito dhanka waxbarashada amba mataqaanaa uu poor academic achievement la yimaado, uu hoos u dhacdo waxbarashadiisu iyo meesha waxbarashada amba iskuulka ka gaadha. sababta qof mas-uuliyadi saarantay ma aha, ilmo mas-uuliyadii bartay ma aha, ilmo meel u socda ma aha, ilmo caqabada ka imanaysa marka uu wax sameyn waayo bartay ma aha. haddii uu waxbarashada tegi waayo waa maxay cawaaqibka uu kala kulmayo hadhowtoole. caruurta iskuulka ku fiican iyo kuwa ku xun labadu way yaqaanaan cawaaqibka ka imanaya iskuulka inay tegi waayaan. ilmaha iskuulka ku xun waxaa laga yaabaa inay sababa keenaya inuu iskuulka ku adkaado amba iskuulka uu naco, sababa amba guriga amba mataqaana environmentka dibadda ka dhalanaya kuu doonaha ahaado. marka iskuulkiisa wuu ku fiicnaan waayo wuu ka hadhay amba iskuulkiisa wuu ka dhacay, laakiin wuu ogyahay caqabada ku imanaysa iskuulka markuu ka dhaco inay hadhowtolo shaqadiisa iyo noloshiisa ay saameynayso. kan iskuulka jecelay tegayaana wuu ogyahay cawaaqibka ka imanaya hadduu iskuulka ka hadho, hadduu iskuulka tagana meesha uu gaadhayo. labaduba amba xumaadna amba samada waa kuwa mataqaanaa waalidkood dee uu hus yidhi oo akhlaaq baray oo meel loo istaajiyey oo aan loola dhaqmin sida permissive parentka. mataqaanaa waalidkan isdhiibaya markiiba. marka ilmahan san loola dhaqmay isagu iskuulku wuu ku xumaanaya sababtoo mas-uuliyadba ma saarna, mana garanaya, kamaba fikiraya cawaaqibka imanaya iyo waxa ku dhacaya haddii dad iskuulka tegi waayo. waxa hoos u dhacda in
noloshiisa bulsho mataqaanaa bulshada qofka saaxiibada iyo dadka siduu u dhexgelayo qaabkii meeshuu ka istaagi lahaa ayaa hoos u dhacdo ama noqdo qof mataqaanaa group adag ku xiran ama saaxiibaha ahaadaan amba dad ula shaqeynayaha ahaada. sidoo kale waxa uu ku guuldareystaan inay emotionkooga amba dareenkooga sida cadhada, farxadda, murugada ay controlaan, mataqaanaa ay iyaguna ku guuldareystaan. kan afraad ayaa isagu midaan sharaxaadba u baahnayn ahoo waxa weeyaan waa waalidka dayaca ah, waalidka dayacan weeyaan, oo waxa weeyaan waa uninvolved parenting styleka la yidhaahdo, oo waa waalid isagu aan danba ka lahayn ilmihiisa noloshooda iyo waxa ay qabanayaan. waalidnimada noocan ayaa waxay ku astaysan tahay mid mataqaana aan kalgacayl lahayn, control iyo edbinada hadalkeeda badaa. waxa weeyaan waa kuwo si ugu talagal ah u dayacay awlaadooda, kama warhayaan ilmahooga halka uu marayo, xaaladda uu ku sugan yahay, caafimaadkiisa, waxa uu ku xun yahay, dhibaatada haysata, waxa uu ka warwarsan yahay, lacag mataqaanaa hadduu wax walba isku soo duub, dhaqaale iyo dhaqan ahaan labadaba iyo caafimaad ahaan iyo jiritaan ahaan midna ugama warhayo, oo waa waalid dayacan oo ilmihiisa dayacay oo aan kaba warhaynin isago. ilmaha noocan ku kora amba waalidka noocani koriya hadhow toole noloshiisa dambe maxay ku yeelanaysaa, waa maxay astaamaha lagu arko ilmaha kusoo koray waalid dayaca oo aan danka lahayn amba aan qiimeynahayn amba macna ilmihiisa aan ka warhayno dayacan. calaamadaha lagu arko ilmahan amba dhibaatadani saameynta ay ku yeelatay ilmahan ayaa waxaa ka mid ah, wuxuu noqdaa horta ilmo gardarro badan ka buuxdo, oo mataqaanaa dagaal badan oo dhibaato badan, oo mataqaanaa isagu waxyaabihii uu lasoo kulmay oo dhan, dayacii oo dhan geli mataqaanaa ay kasoo baxday iyagoo cadhaysan oo dagaalamaya. waxaa kaloo caan ku yihiin depressionka amba isku buuqa amba mataqaanaa oo dareenkoogii farxadoodii jirtaankooga hoos u dhaco oo noqdo mid dansan oo mataqaanaa depressive ah. waxay noqdaan kuwo u baahan attention oo attentionka raadiya meel xun iyo meel fiican meeshuu doonaba hala galo, laakiin mataqaanaa dad attentionka u raadiyo samad arag, macnaa inay noqdaan qof waayo attention may helin, kalgacayl may helin, indho iyaga eegaya may helin, ciddanyanaysa may helin. attentionkii markay yaraayeen ay waayeen, ay ka waayeen waalidkood, maadaama waalidkood ahaa mid dayacan, waxay ka raadiyaan adduunka iyo nolosha iyo bulshada, iyagoo meel xun iyo meel fiican baa ka raadinaya, oo mataqaanaa attention seekers ayay noqdaan amba attention problem ayaa ku dhaca. waxay yeeshaan akhlaaq xumo fara badan, amba dhaqan mushkilad xagga dhaqankaaba ku dhacda, oo dadka lama dhaqmi karaan, bulshada lama dhaqmi karaan, sharciga ma raaci karaan. iskuulka waxay ku noqonayaan kuwo dagaalamaya, kuwo lasoo eriyo, kuwo aan joogi karin. suuqa markay maadaan kuwo sharciga mataqaanaa khaladaad fara badan ka gala, bulshada khaladaad badan ka gala, la qabto, la xidho, la sii daayo. kuwo dhaqankoogu mataqaanaa oo problematic noqda ayay noqdaan markaa. sidoo kale waxaa ku adkaata sidii ay ula tacaali lahaayeen waxyaabaha nolosha ka hor yimaada, mataqaanaa dhibaatooyinka nolosha ee qofku la tacaalo, iyaga la tacaalidaas ayaa mataqaanaa ka maqan amba ku adag. sidaa darteed waxay noqdaan kuwo nolosha markay ka hor timaada ay aada iyo aada ugu adag tahay inay mataqaanaa ay kasoo baxaan. isku soo duubo, waalidnimada ayaan ahayn mid uu la socdo buug oo mataqaanaa uu qofku raacayo odhanayo saasanahay, mana aha mid uu waalidku yahay mid fiican oo waxba ka xumeyno perfect ah. waalidnimadu waa mid u baahan marka koobaad kalgacayl ka bilaabanta. kalgacayl haddaad ilmahaaga siiso oo aad jeceshahay, ood xanaaneynayso, ood gacanta ku hayso, waa meesha ugu fiican qofku ka bilaabi karo. laakiin haddana qof kasta oo waalid ah waa intuu haya in ka fiican ayuu baran karaa, gaar ahaan
inta badan kama fikirno ilmahaaga hadda wax yaroo fudud aad ku tiri amba aad ku samaysay ayaa hadhow toolad caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo guurkiisa intaba saameynaya. waxaan inoo rajeynayaa inaan noqono waalid ku guuleysta awlaadooda. aniguba waalid baan nahay, intay dhegeysanaysa waalidkana waxaan u rajeynayaa inaan noqono kuwa ku guuleysta, kuwa dhagahooda furan yihiin oo mataqaanaa markay laga hadlay waalidnimada iyo aqoonta baaritaanka lagu sameeyay amba la istadhigareeyay la cadeeyay waxay ka baran karaan ka bartaa. sidoo kalena diinteena macaan ee sharafta leh ilmaha siday u sharaftay iyo waalidka oo mataqaanaa hooyada cagaheeda hoosteeda ayay jannadu taalaa. mataqaanaa marka inagaaba haysana meenan raacno oo dee way la socotaa inaga handbook baa la socda waalidnimadeena ilaahay ugu talagalay. waxaan rajeynaya ilaahay inuu guuleeyo, waxaan rajeynaya awlaadeena ilaahay inoo mataqaanaa sakhiro awlaad saalixa ka dhigo. aad iyo aad baa mahadsantiin. barnaamijkeena maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynaya.